cawradeeda in lacag lagu bedesho aabaheed iyo hooyadeed waxaan u ballan qaadayaa $25,000 Mareykanka ah ninkii fahmo fiican ay muuqaalka ka duubay iyo kii baahiyey oo la helay qaarkood oo loo taxaabo xabsiga daahir calasow iyo qaar ka mid a beesha ka dhalatay gabadha oo lacaga aad u fara badan duldhigay xog xasaasi ah ayaan daawada kaaga haya haddaba qaab noocee ah ayaa lagu ogaaday xogtooda waa kuma shakhsiga baahiyey muuqaalka gabadha iyo sidoo kale midka muuqaalka ka duubay oo shalay soo baahisay sawirkiisa halkee ayay hadda ku sugan yihiin xaalka gabadhu waa sidee haddaba daawada waxaan kula wadaagayaa xog xasaasi ah oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee qaar ka mid a dadka gabadhan muuqaalka ka duubay oo la helay halka ay ku sugan yihiin magacooda beeshooda iyo sababta keentay in gabadhan muuqaalkeeda ay baahiyaan iyo inta lacag ah oo ay ka qaadeen intii ay rikaatada ku haysteen haddaba intaan bilaabay muuqaalka daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena Xalana Media subscribe dhoo furo gambaraalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena like sar muuqaalka share gareey lana wadaag asxaabtaada mahadsanid fahmi fiicanay oo ahayd gabar caan ka ah aaladda TikTok ayaa muuqaalkeeda la baahiyay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo la sheegay in muuqaal laga duubay xilli markaasi la kufsaday maadaama muuqaalka sida ka muuqato uusan ahayn muuqaal ay raali ka ahayd oo u ekeed qof wax la siiyey raagis ah oo markaasi dareenkeeda uusan joogin iyadoo markaasi dadka Soomaaliyeed ee muuqaalka arkay aad u argagaxeen la dareemay gabadhan in waxa lagu sameeyay uu yahay kufsi oo Israa'iil ka ahayn haddaba dhalinyaro ka soo jeeda beesha ay ka dhalatay gabadhu ayaa isku xilqaamay inay raadiyaan ninkan dhibaatada u geystay gabadha haddaba Xalana Media xogo hoose heshay ayaa sheegaya in kiiskan hore loo galay oo laba wiil oo dhalinyaro ah oo midkood lagu magacaabo magaciisa geesi kana tirsan yahay ciidamada Haramcad iyo Ibrahim Dheere oo ah shakhsiga muuqaalka gabadha ka duubay ee kiiskan ku lug yeesheen halka Ibraahimna oo muuqaal ka duubay geesina uu gabadha ku rikantay jiray muuqaalkan oo la galay waxa uu qaatay waqti xabsi ayaa la dhigay dhalinyaradan muddo kadib waa la soo daayay waxaana sida la sheegay suuro gashay in booliisku ay ka dileedaan taleefanadooda muuqaaladii markaasi gabadha laga duubay oo lagu rikantay jiray iyadoo oo si gooni ah asgari ka tirsan Haramcad oo lagu magacaabo geesi oo muuqaalkiisa ama sawirkiisa halkan ka arki doontaan la sheegay inuu ahaa shakhsiga muuqaalka ka qaaday Ibraahim oo gabadha ku rikantay jiray ugu dambeyn markii laga qaaday muuqaalka gabadha waxa dhacday ama saxugu sheegayaan in gadaal haddana rikaato ugu sameeyay oo muddo dheer uu qaatay barnaamijkan sa ahaatee gabadhu ay u qaadatay in muuqaalka sida loo dileeday uusan caqabad kale dib uga soo laaban doonin waxaa dhacday maalmo kadib in gabadha iyadoo ku sugan dalka Itoobiya la sheegay in lacag la weydiistay ay diiday maadaama ay aaminsaneed raggan waa la xiray muuqaalkana ma faafi karaan ugu dambeynsa muuqaalkii waa la soo baahiyay iyadoona markuu gabadhu ay ahayd gabar eeda badan laga tirsanayay oo dhalinyaro TikTok ay markaasi isaayeen haddaba sheekada gunaanadkeedu wuxuu ahaa inay gabadhu soo fariisatay media sheegtay shakhsiga dhibaatada u geystay sawirkiisana soo dhigtay waana ninkii koobaad ee markaasi muuqaal ka duubay shakhsiga ay soo baahisay laakiin sida xogaha aan ku helnay ma ahan shakhsiga baahiyay maadaama uu markaasi gacanta muuqaalku isagu uu ka baxay gacantiisa oo ku jiray shakhsi kale oo magaciisa lagu sheegay geesay oo ka tirsan ciidamada Haramcad ee booliska gaarka ah haddaba waxaa suuro gashay in markaasi xaaladda dhalinyaradaasi gaar ahaan Ibraahim oo ahaa shakhsiga duubay muuqaalka sawirkiisana la baahiyay xaalkiisu uu aad qalqal u galo uuna ku dhuumaaleysto qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho isagoo ka cabsanaya dhalinyaro ka soo jeeda beesha gabadhu ka dhalatay oo hadda raadsanaysa sida aad muuqaalada ku aragteen haddana halkan iskugu soo wadaagi doono dad badan oo caan ah oo hogaamiyo Daahir Calasow iyo dhalinyaro kale oo caan ka ah baraha bulshada ayaa markaasi duldhigay lacag aad u fara badan oo qiyaas ahaan gaaraysa $25,000 haddii qof keeno informationka ama xogta ninka ay gabadhu sawirkiisa soo baahisay oo ahaa shakhsiga horseeday ciqaabtan iyo rafaadkan gabadhan ay la marsiiyo lacag fara badanna looga cuno ugu dambeynna markaasi muuqaalka la soo baahiyo waa Ibraahim haddaba Ibraahim wuxuu hadda ku dhuumaaleysanayaa xaafadaha kamid ah magaalada Muqdisho isaga oo ay u suuragali leedahay inuu isaga baxo magaalada si uu markaasi u aado deegaankiisa uu ka soo jeedo